الله marka su'aasha koowaad waxay ku leedahay macallin ayan godan aayad ku dhamaato meeqa ku jirto quraanka tiradana waa ay sheegaysaa waana ay tiriyaysaa faan intaas waaye kadib waa sii qeexaysaa su'aasha kuugu celiyo waxay ku leedahay ayan godan aayad ku dhamaato meeqa ku jirto quraanka marka su'aashaas ayaa ku bilaabanaa barnaamijkeena ما شاء الله دواهي marka aan gudan aniga lahaan quraanka hada fiiriyay aan ka gartay alxaba ku arko alxaba quraanka صح aan gudan aayad ku dhamaado halkana qaafir suuratu qaafir ugu jira yudaacu way okay waad fahanteen filaa aayadaas iyo suurada ku jirto inuu quraanka hal ku jiro waa gudbina su'aasha labaad ayaa gudbina su'aasha waxay ku leedahay macna ghayrahu meeqa ku jirto quraanka su'aasha labaad waxay ku leedahay ghayrahu quraanka meeqa ku jirto hees kaliya macna hadiyad ghayrahu quraanka laba ku jirto lamadana awali ku jira lamadooda mid kooba subhanahu ku jirta ghayrahu wa idha lattakhaduk mid kalena waxay ku jirtaa al-baqara suuratul baqara in dalaqa fala tahil ومن بعد تنبيع زوجا غيره ذا سوي ما شاء الله الله ku barakeeyo macalinkii qaaliga su'aasha dhaxad waxay ku leedahay sida su'aasha waa nafsuhu quraanka meeqa ku jirto maxay kaliya macna su'aasha dhaxad waxay ku leedahay nafsuhu quraanka meeqa ku jirto maxay kaliya هذه نفسه قرآن لبا ku jirto marka mid suuratul ghafir ku jirta mid kalena suuratul maa'ida ay ku jirtaa dawacad iyo laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu okay ma sha Allah waxa wili ku jirna barnaamijkeeni waxa ku sii socon doona su'aalaheena waana su'aashii afraad ay weydiin doono su'aasha afraad waxay ku leedahay macallin nuun hoos dhigan aayad ka bilaabato quraanka meeqa ku jirto nuun hoos dhigan aayad ka bilaabato quraanka meeqa ku jirto nuun hoos dhigan saddex waaysan saddex ku jirto quraanka صح midda koobaad al-baqara ku jirta nisaa'ukum harthun lakum midda labaad waxa waa nicmatan min indina midda kalena waa adeydana waa suuratul muzammil nisfahu wa unqus min qalil ما شاء الله ujeedina asxaabe su'aalaha quruxda badan oo nagu faa'iideeyayo hadii hore u maqashay waa kaas hadii hore u maqlin ka faa'iideyso wacan waxa hore u sii jirnaa barnaamijkeeni waana su'aashii shanaad ee barnaamijkeeni okay waxa ku weydiinaa macaan laba deel isla hoos dhigan quraanka meeqa ku jirto laba deel oo isla hoos dhigan quraanka meeqa ku jirto maxay kaliya macalinkii laba deel isla hoos dhigan iskuna xigaan waa laba deel oo isku buuxan laakiin laba deel oo isla hoos dhigan isku xigaan quraanka hal xabba ku jirto واحد سيس بنام واحد سيدا اوغا لكن دد كلا واخ كلا شيء كريم جنا دد قرانka معجزه waa nooma kala xisaab waana suuratul baraa صح من يحادد الله واحد ما شاء الله اوكي سؤاشي لحاد برنامجكينا قرانك حب meeqa ku jirto حب quraanka meeqa ku jirto maxay kaliyihiin xab quraanka meeqa ku jirto maxay kaliya macna xab quraanka waxa ku jirto 5 ku jirto marka shantaas saddex kamid hal suuray ku jirtaa waa suuratu aali cimraan wa'tasimuu bihablillahi iyo duribat calayhim dhillatu aynamaa thuqifuu ilaa bihablin من الله وحبل من الناس صح صح مدة كلو كسو حفظ سورة الغافية ودرتها من حبل الوريد وهو تغنين مدة تبت صح حبل من مسد وكايا مطمئن دوين واد أركتنا فلا سيدو نوغو قيحي وذا فهنتين ما شاء الله سؤاشي تضبات أيا بري كسيد دو سعنا معلومة سؤال سؤال waxay ku leedahay quraanka bacdakum quraanka meeqa ku jirto oo kor dhigan bacdakum quraanka meeqa ku jirto maxay sakariin bacdakum quraanka lixa ku jirto
marka midda ugu horeyso waxa waaye walaa tatamannuu maa fadala allahu bihi bacdakum waa suuratu nisaa. nisaa midda labaad waa suuratu waxay ku jirtaa ancaam waa qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha horada usii wadawaarga waydiiq bacdakum waa taas. midda saddexaadna suuratu bisinkaas lee ku jirtaa aayadda ugu dambeyso ancaamkay ku jirtaa waa waladii jacalakum waa fahanta. midda kalena midda afaraadna waxay ku jirtaa suuratu naxli wallahu fadala bacdakum waay naxda ku jirta taa amrullah malaa ataa amrullah waay afara ku haya xaqul saddex ku dhiman lama ku dhiman laba ay dhiman shanaadna waxay ku jirtaa suuratu furqaan صح waxay ku jirtaa suuratu furqaan waxa waaye وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون. midda ugu dambeysana waxay ku jirtaa lixaadna waxay ku jirtaa suuratu alladii laakin liyabluwa bacdakum. waad fahanteen asxaabta waa lixdaas macalinka sidoo noo sheegay haddii ka badan ay jirto waana soo sheegi karta laakiin ma uu jirto macalinkaana soo khulaaseeyaba allah barakeeyo. su-aasha sideedaad waxay ku leedahay macalin alif gaaban iyo ta gaaban ay isku xigto quraanka meeqa ku jirto tirada ka rabaa maxayna kala yihiin hadda su-aasha ku celi ku fahamsiyo asxaabtana ay fahamsiyo alif gaaban waxaa laga wadaa alif hamza iyo ta gaaban ay isku xigaan ma fahanteen oo isku xigaan quraanka meeqa ku jirto tusaale hal xabaad tusaale bixina saw ata ka qaado saw ata waa alifkaas gaaban iyo ta'daas gaaban saas amal waa marka quraanka meeqa ku jirto waa mahadsantahay macalinkeygi marka alif gaaban oo ta gaaban ee isku xigaan say rabaa u shaqlanaadana marka quraanka todobaa ku jirto aad iyo aad todobaa ku jirto marka waa laba waayba laba baraatun iyo laba sawata iyo saddex nashaata waa laba baraatun hadda bisiga barawaaba taqaaniinba baraatun fi zuburi waa taqaaniin midaasna waxay ku jirtaa iqtarib sawatana waxa waaye fabacatha allahu lamada ku jirtaa labada sawat nashaatana midda waxay ku jirtaa suuratu axsiba mid kalena waxay ku jirtaa suuratu wanajmi midda saddexaadna suuratu alwaaqica. maasha allah waad fahanteen filaa asxaabta sagaalad waxay ku leedahay macalin laam aayad ka bilaabato aayadna ku dhammaato quraanka meeqa ku jirto waa laamkaas aayadii uu ka bilaabaha laamkaas la aayadaas uu ku dhammaaha marka waxaa la iska marka laam aayad ka bilaawdo aayad ku dhammaado quraanka meeqa ku jirto aad iyo aad laam aayad ka bilaawdo oo ku dhammaado quraanka saddexa ku jirto laba hal bisni ku jiraan oo waxa waaye low dacwatu lxaq iyo low mucaaqibaatu waana ka bilawda waana ku dhammaadaan midda kalena yowm alfasli waaye meesha ku jirtana waa taqaaniin yowm alfasli. okay su-aasha u dambeyso su-aasheena waa su-aashii tobanaad waxaa sheegtaa maca nuun hoos dhigan aayad ku dhammaato meeqaa ku jirto waa nuun hoos dhigan aayad ku dhammaato quraanka meeqaa ku jirto nuun hoos dhigan oo aayad ku dhammaada quraanka hal xabaa ku jiro sida aniga macnaha aan soo ogaado soo fiirshay haddaan soo fiirsho quraanka hal xabaa ku arkay waa lakum diinukum waliya diinidaas maasha allah waa intaas. okay waxaa kaa raba macalin labo su-aal in asxaabta u dirtaa kaa raba ay kasoo shaqeeyaan ay kasoo jawaabaan asxaabta hadda idin macnaha la hadlo anigu anaa su-aalahan waa macalinkana berigay wacay asoo su-aalihii diyaarshay marka su-aalan anigu shaqadayda maahayna waxaan ku weydiisan jira maana waxaan dad meel weyn aan ku imaado oo macalinkii garabkiisa aan kasoo muuqda iska jeclaa maahayna macnaha laakiin anigu nin oo su-aalo iyo shuqul ku takhasusmay aqoon badan lehen laakiin saas naqayso maadaama alasaan laysi yiri laba su-aala idin dhiiba asxaabta oo iska fudud aniga wax oo culus ma bahayo. midda koowaad waa rabbahu quraanka tumi sagaala ku jirto inaad garateen una fahantiin una kasoo jawaabi doontiin oo soo falceli doontiin. midda labaad waxa waaye kaaf hoos dhigan oo aad ku dhammaado
قرآن كان حباه كجرو